gobolka banaadir iyo maqaamkiisa iyo inuu maaragtay gobolka banaadir uu maamul u madax bannaan yahay uu yeesho dastuurka aan haysanno waxaa la ansixiyey 1 Agoosto 2012 maantana waxaa la joogaa 2020 8 sano ka soo wareegtay dadka shacabka ku nool gobolka banaadir 8 sano waxay sugayeen qodobka 9aad artikalkaasi in laga hadlo oo loo suubiyo maqaamka gobolka banaadir ilaa iyo hadda wax ka soo socdo ma leh waxaan rabaa inaan xasuusiyo dhowr bilood ka hor waxaan idin keenay mooshin aan kaga codsanayno guddoonka in meesha la soo dhigo oo laga hadlo gobolka banaadir iyo xuquuqdiisa hadday maamul loo suubi lahaa maamul goboleed ay noqon lahaayeen maamulka iyo waxa ayaga dadka maamula ay dooran lahaayeen lacagahooda ayaga ay maamulo lahaayeen ilaa iyo hadda mooshinkaasi mana naloo qaybin mana laga shaqeyn horta waxaan u mahadcelinahay xildhibaanada sharafta leh oo mooshinkaasi nagu taageeray oo noo saxiixay kuwa kale aan saxiixin ee nagu qabsadeen waa ka cudur daaranaa waqtigaa nagu yaraa maana xildhibaanada oo dhan waxay u ahaayeen diyaar inay saxiixaan oo gobolka banaadir xuquuqdiisa iyo soo celintiisa iyo maqaamkiisa in laga wada hadlo waxaan rabaa codsi inaan u jeediyo guddoonka in markii laga gudbo matalaadda aqalka sare oo hadda la hor yaallo in ay noo qaybiyaan mooshinka isaga ahaa xildhibaanadan sidaan maaragta u wada hadlaayo ay ra'yigooda uga dhiibtaan sida gobolka banaadir uu helaa xuquuqdiisa kale oo dhiman oo hadday tahay inay ismaamulaan hadday tahay inay maamul goboleed ay yeeshaan haddii ay tahay nooc walba ay tahayba mana rabo in loo fahmo oo markii laga hadlaayo gobolka banaadir iyo contributionka waddanka uu u geystay maaha inaan xaqirayno dadka kale ee gobollada kale ku nool laakiin waxaan rabnaa shacabka gobolkan degan culayska ay qaadeen sabarka ay yeesheen contributionka weyn oo dowladnimada Soomaaliyeed ay ku tarayaan in anaga nafteena aan garanno oo baarlamaankaani ama golaha shacabka maanta aan joogno oo sharaf ku yeesho in dadkaasi xuquuqdooda ay helaan oo ah inay maamulkooda soo doortaan inay representationkooda ay yeeshaan waxyaabaha oo maanta aan ka hadlayno oo dhan oo hadda loo keenay matalaadda aqalka sarena waa wax xal lagu raadinayo sidaa ogtihiin dastuurkeenna oo 8 sano dhisan qodobo fara badanaa la dul maray oo aan la dhowrin haddana waxaa lagu dul marayay in maslaxadda Soomaaliya laga ilaaliyo qof Soomaali oo sheeganaya in sheegashadiisa la xaliyaan loo suubinayo waxaan rabnaa iyadoo meeshaas laga fiirinayo inaan nala dhihin maaragtay aqal sare ama sanad state kaliya oo matala annagoo og maanta maamul goboleedyada qaar inay ku joogaan kaarayaal dowlad dariska inay ku joogaan aysan ku dhisneen rabitaan shacabka uu soo doortay aysan ku dhisneen ama rabitaan dadka eraalka oo aysan ku dhisneen marka waxaan rabnaa annagoo is-eedeedeen ama aan wax iska sheegin oo is wada jecel inaan gobolka banaadir aan siino 4 sano ayuu wuxuu dhisnaa aqalka sare sharci darrada ku dhisnaa maxaa dhacay aqalka sare wuxuu leeyahay dadka aqalka sare waa inay ka koobnaadaan 18 gobol gobolka banaadirna waa ka maqnay taas nafteeda soo sharci darro maaha qofkii qadiyay aniga ma rabo inaan dad eeday hore ama aan madal iyo dad kale eeday mar waxaan rabaa inaan sheego in qodobada meelaha qaar ay ku jabnaayeen maanta annaga ana joogno maanta xeer baan disuubino oo doorasho waxaan dhahnay gobolka banaadir matalaadiisa maaragtay ha lagu soo daro waa sharaf annaga aan qaadanayno maanta waa abaal aan gashanayno dadka shacabka gobolka banaadir waxaan rabaa walaalayaalo codsi waaye waa weydiisasho waaye ma lihi qofkaan codeyn qofka codeeyo ha iska jiro ma lihi waxaan rabnaa dhammaanteenba inaad arrintaas nagu taageertaan sida qodobadii hore kii haweenka aan dhammaanteen u taageernay kii gobollada waqooyi aan dhammaanteen u taageernay waxaan rabnaa gobolka banaadir in matalaad uu ku yeesho aqalka sare 4 sano soo socoto sida walaalkay uu sheegay maaragtay gudoomiye Jelaani Nuur Iikar in 14 looga dhigo oo aan u qorsheeno haddii Ilaahay raali ka noqdo waana maasantiin